بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أصحابta qaaliga kulli waana wada salaamay. Salaan ka bacdina waxaan ii wadaa casharo cusub ku saabsan aragti cusub iyo hab cusub iyo way cusub aan uga hadli doono insha Allah istikfaarta saa ognahay ilaahay casa wajal waa cibaadooyinka ilaahay oo loogu dhowaado inuu dembigaada dhaafo, laakiin waxaa la ogaaday researchyo badan iyo cilmiga behavioral human behavior ama dhaqanka ibni aadanka waxyaalo badan inay kaa caawinayso istikfaarta markaa samaysid oo ku saabsan horumarka caafimaadkaada, horumarka dhaqaalahaada, horumarka qalbigaada, horumarka wacyigaada, horumarka xiriirka dadka la leedahay, habka dadka la hadlaysin, iyo horumarka diintaada. Tabcan tan ugu horeysa ugu muhiimsanba waa horumarka xiriirka ilaahay casa wajal aad la leedahay. Mar kastaba aad dareemaysid inuu yacni istikfaarta kaa caawinayso dhawaashada ilaahay casa wajal iyo inuu raali kaa noqdo. Marka casharka maanta iyo casharada soo socdaba arrimahaas baa kula wadaagayaa oo aan jeclahayna more interactive inaan isla noqono biidni illaahi tacaala, oo istikfaartana ay noo noqoto wax oo maalin kasta ibni aadanka ka kaaftoomi karin, sida uga kaaftoomi karin cuntada, hurdada, nolol maalmeedkaada nooc kastay noqoto, inay istikfaartana kuu noqoto habit. Istikfaarta wax oo maalin kasta aad samaysid cibaado oo aad iyo aad ugu faraxdid samayskeeda maalin kasta inay noqoto. Cibaadadaas oo istikfaarta ah waxa ugu muhiimsan ku dhihi karo ee naga caawini kartaa adigana dareemaysid xitaa markaad waqti muddo markasta istikfaarta badsatid, waa inay qalbigaada nadiifinaysaa. waxa ugu muhiimsan qalbiga nadiifka ah, siduu ilaahay casa wajal dhahay, yacni yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. maalin waxaa imaan doonta yowm alqiyaama, jannada yacni laguma galaayo intee caruur baa laheyd ama intee lacag baa samaysay, waxaa lagu galayaa qalbigaada iyo nadaafadaada iyo qalbigaada inuu saliim yahay. marka cibaadooyinka directly aad kaaga caawinaysa arintaas oo markastaba muraayada qalbigaada markii wasakhoodaba kaa tirtiraysa biidni illaahi tacaala waa cibaadada istikfaarta. muraayada qalbigaada markay nadiif tahayna taas waxay kaa caawinaysa aragtidaadana inay waadix tahay, laanu aragtida runta ah maaha indhaha oo wejiga ku yaala, waa indhaha qalbiga. fa inaha laa tacma alabsaar walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur. yacni qofka markuu indhabeelka runta ah maa indhabeelka indhaha. indhabeelka runta ah waa markii qalbigaada oo xikmadii kaa tagto, oo wacyigii kaa tago, oo khalad iyo saxaad kala garanaynin, oo maxaa la yidhaahdaa go-aan sax aad qaadan karin noloshaada, aragtidaada si sax u arkeynin, oo markastaba wax kastaba dhinac khalad ah ama dhinac negative aad ka arkaysid, ama wixii shar ah unbaad maxaa la yidhaahdaa focuska saaraysaa. taas waaye markii qalbigaada iyo wixii ilaahay casa wajal oo kugu talagalay inaad samaysid oo ugu muhiimsaneed, wamaa khalaqtu linsa waljinna ilaa liyacbuduun, inaa fitnad ku mashquushid oo qalbigaadii iyo noloshaadiba inaa wuxuu ilaahay kugu talagalin inaad ku mashquulisid oo waqtigaada ku dayacmaayo, caafimaadkaada ku dayacmaayo, iyo wax kastoo muhiim ah oo kaaga dayacmaayo. taasna maxaa halkee ka imaatay? waa markii indhabeelka runta oo qalbiga, indhaha qalbiga marka ilaahay nagama beelsiiyo, laakiin yani camiga runta ah waa camiga qalbiga. marka istikfaarta waxay kaa caawinaysaa inay qalbigaada nadiifiso, inay xikmad uu ilaahay casa wajal kuusii ziyaadiyo, لأنه سبحان الله يعني إلهي سدو دهي واذكروني أذكركم. marka ilaahay casa wajal wuxuu ku dhahay marka ixasuuso anigana waa ku xasuusana. ilaah markasta wuu ku xasuustaa, laakiin wuxuu kugu talagalayaa maadaama qof oo markasta ilaahay xasuusadiisa kugu badan tahay, wuxuu kugu talagalayaa yacni raxmad ziyaadad ah, wuxuu ku siinaa naxariis ziyaadad ah, barako ziyaada ah, wanaag ziyaada ah oo khayraad iyo ducadaadu ilaahay ku ajiibayo. marka okay, casharkan ugu horeeyaan rabna inaan ka hadalno biidni illaahi tacaala waxay ku saabsan tahay sidee baa waqtigaada uga faa'iideysan kartaa
oo camalka ugu badan ama ajarka ugu badan waqtiga ugu yara qaadan kartaa. sidee ba acmaashaada oo wanaagsana u badin kartaa adigoo waqti yar isticmaalaysid, because ibni aadan baa tahay, ilaawshadeena badan more than xasuusashadeena ilaahay casa wajal. marka sidee ba uga faa'iideysan karnaa? waxaa la dhahay xadiisyo badan baa jirta dabcan oo ka hadlaysa niyadda saalixada ah. inama alacmaalu binniyaat, xadiiskii oo nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu jibriil u imaanaye, xadiidkaas culimo badan waxay dhaheen xadiidkaas yacni diinta waxa ugu muhiimsan buu ka bilaabay oo ah niyadda saalixada ah. niyadda saalixada ah marka niyadda saalixada ah maxay kaa caawinaysaa? waxay kaa caawinaysaa inuu ilaahay casa wajal ajar wanaagsan inuu kugu siiyo markaa niyad saalixad la imaatid, oo camal kasta action kasta nolol maalmeedkaada ku saabsan niyad saalixad haddaa la imaatid waxay kaa caawinaysaa inaa camalkaas ama actionkaas ama hoolahaas, yani haddaa hooyo tahay gurigaasaa dhaqaysid, alaabtaasa hagaajinaysid, cuntadaasaa karinaysid, ciyaalkaas haynaysid, ama qofkii arday ah banaankaasu aadayo, bugaagtaasu akhrisanayo, cilmigaasu raadsanayo, ama qofkii shaqaysanayo shaqadaasu aadayo, ama wixii ku saabsan waxaasoo dhan nolol maalmeedkaada iyo wax kasta ku saabsan waxay kuu noqon kartaa waxa ajar ka helaysid oo cibaado kuu noqonaysa. socodkaasaad aadaysid jimka xitaa sometimes ilaahay casa wajal ajar buu kugu siinaya, laakiin taas waxay ka imaanaysaa markaa adiga niyadda saalixadda la imaatid. siduu xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam sheegay, xadiid waxaa jira aad iyo aad cajiib u ah oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ka hadlayo dad oo kala duwan, dadka oo cibaadkiisa ilaahay kala duwan. marka labada ugu horeeya markuu ka hadlayo wuxuu ka hadlay inuu ilaahay casa wajal qofkii oo waxaa jira dadka ibni aadanka way kala nasiib duwan yihiin adduunkan. ilaahay casa wajal qof waxaa jirta uu siiyey cilmi iyo maalba siiyey. qofku ilaahay cilmigaas iyo maalkaas siiyana wuxuu ka mid yahay haddii yacni loo fiiriyo taabiyaasha iyo dadka noocyadooda, nooca oo ilaahay casa wajal oo ugu kheyr badan bay ka mid yahay, because qofkaas cilmigiisina wuxuu ilaahay raalli ka yahay buu ku sameynayaa, dadkii buu wax barayaa, wax wanaag buu sheegayaa, maalkiisina dee wax fiican buu ku qabanaya, ayadan acmaal fiican wanaagsan kaluu ku qabanaya badanoo ilaahay raalli ka yahay. marka yacni tartiibka ama yacni sida loo arkayo darajada qofkaas oo mu'minka oo ilaahay intuu maal iyo cilmiba siiyey wuxuu ka mid yahay darajada ugu sareysa. waxaa ku xiga darajo kale oo ah mu'min oo asagana ilaahay casa wajal, addoon ilaahay casa wajal oo siiyey cilmi buu siiyey laakiin lacag ma siinin. cilmi buu siiyey, aqoon buu siiyey oo uga faa'iideyn karo, naftiisa uga faa'iideysan karo oo dadka kalena u faa'iideyn karo, laakiin maal ma siinin. marka subxaan allah, laakiin niyaddii saalixada markuu la imaaday, niyad saalixad buu la imaada oo ah haddaan lacag haysan lahaa, haddaa xoolo haysan lahaa ama maal haysan lahaa, waxaan ku sameyn lahaa wanaag iyo khayraad sida walaalkaygaas kale oo asagana wanaagga sameyn. yani xadiidka waa macnihiisa saas, yani ma inuu saas exactly, laakiin macnaha xadiidkan ka hadlayaa. marka yacni wuxuu jeclaan lahaa qofkaas hadduu maal lahaan lahaa inuu wanaag badan sameeyo. hadda for example xajkiyaa soo socda insha allah maalmo ka bacdi, dad badan ma awoodaan inay aadaan. ilaahay insha allah dadkao dhan muslimiinta o dhan ilaah u wada fududay inay aadaan biidni illaahi tacaala, aamiin. laakiin yacni maadaama oo dadkii awoodeen inay aadaan, ilaahay casa wajal haddii ka baryaan oo niyadda saalixada la imaadaan, ilaahay casa wajal haddaa aniga awoodi lahaa inaa xajka aado waan aadi lahaa, waan ka qayb gali lahaa, waan jeclaan lahaa cibaadadaas aadka oo maxaa la yiraahdaa u wanaagsan inaa ka qayb galo sameeyo haddaan lacag haysan lahaa. arintaas keliya niyadda saalixada markaad la imaato ilaahay ka barisay, haddaad awoodi lahayd xajka inaad aadi lahayd oo yacni wax kasta oo kale adduunka ka hormarin lahayd, haddaad awooddaas oo maalka ah iyo caafimaadkaad haysatid, taas maxay ku siinaysaa? waxay ku siinaysaa biidni illaahi tacaala. ilaahay waa kariim, ilaahay wuu naxariis badan yahay, wuuna karam badan yahay. ilaahay waa deeqsi, waa ilaahay deeqsigiisa, yani subxaan allah, deeqsinimada ilaahay casa wajal wax lasoo koobi kara ma aha.
ilaahay markaad niyadaas la imaatid wuxuu ku siinayaa ajarka qofkii oo xajka oo intuu aaday oo u dadaalay oo maal iyo maxaa la yiraahdaye energy iyo caafimaad bageliyey oo ilaahay casa wajal cibaadada si fiican uga soo baxay ajarku qaadan lahaa adigana waad qaadanaysaa adoo gurigaada joogtid lian waxaad la imaatay niyaddii saalixada ahayd haddaad haysan lahayd adigana waad sameyn lahayd. marka taas maxay ku tuseysaa? waxay ku tuseysaa acmaal badan oo saalix ah baad qaban kartaa markaa niyad saalixad la imaatid inaad jecesha. dabcan acmaasha saalixada waa ina kuwa aad qaban karin inay ahaato, yacni adoo hadda salaadii tukan kara oo istaagi karo soo weyseensan kara hadaad tirahdaa salaada haddaan tukan lahaa ilaahay haddii ii fududaan lahayd waa tukan lahaa. no, wixii aad awoodid waa inaad samaysid. camalka saalixaad awoodid waa inaad samaysid. laakiin waxaan ka hadlayaa acmaal saalixa badan baa jirta oo laakiin anaka awoodin, xagga yacni dhaqaalaha haddii ahaato, xagga caafimaadka, xagga waqtiga haddii ahaato. marka acmaashaas oo saalixada oo wanaagsan aad jeclaan lahayd adigana inaad samaysid. hadda for example haddaa aragtid qof oo masjid dhisaya adigana awoodin, waad dhihi karta ilaahay casa wajal haddaa aniga haysan lahaa maalkaas waan jeclaan lahaa anigana inaan dhiso baytullah. taas maxay ku siinaysaa? ajarkii bay ku siinaysaa. tanaan rabna inaan ka faa'iidaysano waxawaa waa ajarkaas inaan la qaadano oo ilaahay casa wajal aan markasta aan ka barino wixii wanaagah inuuna waafajiyo, wix kastana oo niyad saalixad inaan la imaano. marka taas maxaa naga caawinaysa? istikfaarta badan qalbigaadii wanaajinaysaa. qalbigaadana markuu wanaagsanaado ilaahay wuxuu ku siinaya xikmad badan iyo maxaa la yiraahdaye aragti wanaagsan aad jeclaanaysid camal kastoo saalixba inaad ka qayb gashid. waqtigaadii aad qiimeynaysid because waxaad ogtahay inay aakhira kaa dambeyso, inuu meel loo socdo oo yacni maal iyo banuun iyo wax kale ka anficaynin. waxaa ku anficaysa acmaashaada saalixada aad samaysa adduunka intaad joogtay. marka sideeba u badin karta akaunkaada acmaasha saalixada ah? waa inaad samaysid intaad kuwa awoodidna inaad samaysid, kuwaad awoodidna inaad samaysid inaad niya asaalixa inaad la imaatid oo ilaahay casa wajal aad ka barisid. haddaa awoodi lahayd waa sameyn lahayd. taasna waxay kaa caawinaysaa inuu ilaahay casa wajal kariimka deeqsiga badan inuu ku siiyo. marka maanta casharkeena waa intaas. niyadda ina la wanaajiyo, niyadda ina la hagaajiyo, qalbiga ina la nadiifiyo. sidee ugu sahalsana taas la sameyn karaa? dabcan adkaartoo dhan baa la akhrin karaa, laakiin dikriga oo aada run ahaantii kaa caawinaya nadaafada qalbigaada waa istikfaarta. waa mahadsantihiin dhegeysigiina iyo waqtigiina. jasaakum allahu khayran. iyo waa nooc cashar labaad oo ku saabsan faa'iidooyinka istikfaarta. baaraka allahu fiikum. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.